السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساوذ أجنه هيبة drop shipping wuxuu ku xiran yahay mar walbaba alaabta ay iibinaysid. Waxaa loo baahan yahay in la yimaado wax la dhaho winning products. Haddii la yimaatid alaab xun wuxuu u badan tahay inaad ku khasaartid si kasta hadaa maaragtay lacag ugu bixisid xaysiis. Sababtoo ah waxa mar walba ku hagayo ku wadaayo maaha store-kaaga sida uu egyahay, maaha maaragtay lacagta Facebook aad geliso, maaha Facebook saa u hagaajiso. Waxa dhan waxaa ka muhiimsan shayga ay iibinayso. marka muuqaalka maanta waxaan rabaa inaan kaga hadlo sidee ku heli kartaa winning product. waa maxay winning product? waxaan ku siin doonaa 3 meelood aad heli karto winning product wanaagsan. 2 meelood waa free, meelna waxay tahay lacag ayaa ka bixinaysa laakiin waxay leedahay free trial. marka muuqaalka wuxuu noqon doonaa muuqaal dheer oo ku sameyn kartid product research oo ku sahli doono sida ku heli lahayd winning product. run ahaantii marka bilaabayso drop shipping waxa ugu muhiimsan aad ku bilaabayso waxay tahay inaad winning product aad la imaato. sababtoo ah ma samaysan kartid magaca domain, ma samaysan kartid store, ma samaysan kartid Facebook page, Instagram page, TikTok page adoona marka hore ogaanin waxa ay iibinayso. kadib marka ogaatid okay waxa ay iibinaya shayga noocaas kadib ayaan maaragtay ChatGPT oo kale isticmaalaynaa. kadib markaas ayaan maaragtay domain soo raadinaynaa oo magaca maaragtay u eg shayga ay iibinayso. kadib ayaan soo raadinaynaa maaragtay Facebook magacaas aad dooratay. yani wixii halda inay leen isku wada jiraan oo wax isku xiriirsan yihiin inaad store iska bilowdo ina maaragtay wixii iska dhax walaaqada mal rabo. halda ina marka hore procedure ka raacdid. procedure kan waxay tahay step 1 product research. okay marka waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid maxaa ka dhigaya product inuu noqdo winning product. inuu product noqdo winning product waxa ka dhigaya inuu yahay product isaga kaligiis is iibinayo. alaab waxa jirta maanta inaan maaragtay xaysiis badan u sii baahnayna sababtoo iyada is iibinayso shaygan ayaa isaga macna weyn ku fadhiyo oo isagii ayaa maaragtay wow factor leh, isagii ayaa unique ah oo maaragtay isagaas xaysiinayaba. adig kali waxa laga baahan yahay kali dadka inaa maaragtay horgeesa dhahdid shaygan gacanta ku haya qofkiina hadal la'aan isaga iibsanaya. sababtoo ah shaygan hadal badan uma sii baahnabo, wax dhibaato xalinaya wax loo baahan yahay waxa waay markii horeba suuqa ka maqnaa oo haddii aad keentid qofkiina uu og yahay dhibka haystay oo markiiba wixii uu ku soo ordayo. marka saa wada ognahaybo dadka bini'aadanka marka wax iibsanayaan kuma iibsadaan waxan maaragtay wuxuu yahay ee waxay ku iibsadaan waxay ka faa'iidi lahaayeen. wax walba maanta iibsanaysid wuxuu leeyahay emotional attachment. yani sabab waxa jirto emotional ahaan aad iibsanaysid waxa la yaabaa wax inuu maaragtay insecurity ama dhibaato ku haystay inuu ka xalinayo. waxa la yaabaa inuu maaragtay hadii qof kale uga dhigaysid oo qofkii ku farxay wax walba wuxuu leeyahay psychology ku xiran oo emotion ku xiran ayuu leeyahay. marka waxa loo baahay mar walba inaad taageeraysid emotionkaas. tusaale kale maanta marka fiirisid kale Nike waxay iibiyaan kabo maryo iibiyaan laakiin marka wax ku xaysiinayaan kaba iibina kuma dhahayaan waxay ka xaysiinayaan waxay ku leeyihiin just do it samee. yani waxay ka dhigayaan inay yihiin amal inay yihiin winners, inay yihiin dadka guuleysto ayaa dharkeena xirta amal dadka guuleysto oo go'aan ka qaato wax sameeyo ayaa kabeena xirto ayaa maaragtay maryaana ku labisto. soo markii aad qof guuleysta aad noqotid sidoo kale waxa sleedahay ha ka harin dadkan oo yani qofka guuleysta ka harin oo noqo maaragtay saas ayana maaragtay ku soo xushaan. waxa arkaysa ciyaartooyda waaweyn ee saxiixaan, waxa arkaysa athletes, waxa arkaysa dadka sportka ciyaaraan. marka mar walba kaba iibinayaan laakiin haddana kabihii kama hadlayaan, waxay ka hadlayaan feeling aad dareemayso marka kabaan xiratid, marka maaragtay garoonka aadid, marka kabaan ku ordid. marka mar walba xalay qofka ka iibiso emotionka. marka mid ugu horeyso oo ugu fudud aad ku heli karto winning product waxay tahay inaad daawatid dhalinyarada ka hadasho drop shipping, khaasatan hal wiil oo aan ku sheegi doono oo magaciisa la dhaho Ali Akbar Daily E-commerce. I think yar Pakistani waa Dubai joogo. yarkan hadda aragtaan muuqaaladiisa sida muuqaalada caadiga oo drop shipping dadka kale ka hadlaan kama hadlo. wuxuu sameeyaa wuxuu ku leeyahay copying 111k month drop shipping store and making it even more profitable. so mar walba wuxuu ka hadlayaa alaab isaga uu research ku sameeyay kadibna product ayuu ku tusay. so product isaga waqtigiisa gelinaa inuu maaragtay research sameeyo, inuu isticmaalo maaragtay alaabo oo maaragtay inuu isticmaalo website lacag ku baxayaan bishii lacag laga qaadayo isaga ayaa isticmaalaya maaragtay lacagtiisa si uu YouTube kaaga soo sameeyo winning product. so adii kali waxa loo baahan yahay marka muuqaalkiisa daawatid inaad dhigtid okay isaga wuxuu sameeyaa researchkii wuxuu ku tusayaa maaragtay product intuu sameeyay lacag ah, wuxuu ku tusayaa statkiisa dhan, wuxuu ku tusayaa adskiisa. marka adii kali waxa loo baahan yahay muuqaalka aad daawatid okay productkan waa fahmayaa I'll choose this one kana dooranaa camal. run ahaantii because of this guy waxaan helay my winning first product. marka koobaad waxaan sameyn jiray sida caadiga ah youtuberada waxay ku dhahayaan TikTok dhex wareeg san samee kan waxa TikTok dhex wareega waxa wax nin walba uu sameeynaa. soo mar walba xalay inaad ka duwanaatid
dadka meesha aadayaan haddii TikTok aadi dadkan ay isku wax iibinayaan so waxyaabaasna TikTok lagu dhex wareejinayo maaha wax saameyn fiican leh maaha waxyaabaha waa just markaas lagu dheelayo kadibna uu qof maaragtay uu lacag inuu ka bixiyo jeebkiisa waxa iibsado ay ku adagtahay waxa loo baahan yahay qofka marka shayga u soo bandhigtid in lacagta jeebkiisa ku jirto isagoo hataa maaragtay ka fikir mar labaad lacagta inuu soo bixiyo oo adiga indhaha ka soo galaal raba so marka cunigana wuxuu tusayaa shilinkiisa daa fiirisid YouTube-kiisa hoos ayaa soo dhigi doonaa wuxuu ku tusayaa winning product wanaagsan oo maaragtay research-kooda ku tusayaa wuxuu ku tusayaa sidoo ku soo helay wuxuu raacayaa shop hunter wuxuu ku tusayaa analytics-kooda stats-kooda ads-kooda so waxaa leeyahay boqolkiiba boqol wiilkan waa follow garan kartaan waa ka fiirin kartaa muuqaaladiisa af English ayuu ku hadlaa laakiin haddaa muuqaalka yar daawatid wax yar waxaa fahmi kartaa product inuu yahay winning product haddaa tijaabisid sidoo kale wuxuu sameeyaa wuxuu leeyahay meel funnel ayuu leeyahay isagu hagaajiyo ku dhahayaa funnelka isticmaal laakiin isticmaal qasab maaha kaliya waxa ka eegi kartaa kaliya product ku iibinayo talaabada labaad oo ku heli karto winning product waxay tahay inaad isticmaashid Facebook Ads Library hadda Google ku qortid Facebook Ads Library waxa ku soo baxay page-kan marka page-kan soo gashid waxa arkaysaa inay ku qoran tahay search ads location-ka ayaa ku soo baxay oo Kenya hadda Kenya ayaan joogaa marka waxa loo baahan yahay inaadan Kenya ka bedeshid ayaa loo baahan yahay sababtoo hadda Kenya ku dhaaftid wuxuu ku tusaa xaysiiska kaliya Kenya aad ka helayso anagana ma rabno inaan maaragtay Kenya raadino sababtoo waxa u baahanahay inaan adduunka kala raadino so waxa leenahay all ayaa leenahay oo ka bedelayna kana waxa leeyahay all ads ayaa leeyahay meesha ku qoran tahay search keyword-na waxa gelinaya keyword waxa la dhahaa xaraf markaas ku raadinayso wixii hadda raadinayso kabooyin waxa qori kartaa shoes hadda raadinayso dumarka waxooda waxa qori kartaa women shoes ama women products marka waxa loo baahan yahay mar walba inaad gelisid keyword ama xarafkii aad ku raadinaysay markaas soo kale dan waxa raadinaya kareemada ee dumarka wajiga marsadaan waxa qoraya kaleeto facial creams oo facial cream marka facial cream qoro uu ku soo baxaya oo ku dhufanaysa kadib wuxuu ku tusayaa ads-kiyada badan oo la rangareeyay oo hore loo soo rangareeyay inta qof ads rangareynayso kor waxa ku qoran active macnaheedu waxay tahay qofkan ad-kan hadda arkaysaan uu rangareynayo ilaa hadda uu ku socdaa oo ad-kan ma uusan iska xirin active waxay tahay wax ilaa hadda socdo oo weli shaqeynayo marka wuxuu rangareynayay from 31st March I think 31st March shalay so qofkan hal maalin ayuu rangareynaya store-kan so marka waxa arkaysaa nin walba iyo store-kiisa qaar luqado kale tahay dhamaantood ma ahan drop shipping qaarar waxa waaye dukaamo caadi oo jira waay laakiin waxa arkaynaa in suuqa kareenka daaqo kale waxyaabo kareen la xiriiro qaar sawir ay isticmaalayaan qaar muuqaal ay isticmaalayaan xaysiisa marka waxa wada inaan qoladan gudaha u galo hadda qoladan luqad kale ay ku qoran kuwan iska dhaaf kuwan camalada kuwan ay company jiro waxay og yihiin branded drop shipping inay yihiin waxa ku qoran just nutritive hadda gudaha ugu dhufto waxa arkayaa inta ads ay rangareeyeen oo Facebook sababtoo Facebook wuxuu record gareynaya ads-ka maaragtay ku dhex rangareynayso so marka wuxuu tusayaa page-kooda si aragnaba waa page weyn waxa ku xiran 182,000 so qoladana kale waa brand caadi ah oo jira waay waxay sameeyeen maaragtay brand ay sameeyeen kaliya waxay ka hadlaan beauty supply sameesha ku qoran tahay plant based hair and skincare products ay iibiyaan so qoladana kale lacag waa in ay sameeyaan waa aragtay store-kooda inta ku yaala number-kooda waa kana haddaan dib u soo laabano kaleeto saada ku sheegay qolo weyn haddaa fiirsid ku dhufatid view ads ku dhufatid just nutritive kooda ku dhufatid view ads waxa arkaysaa inta ads ay rangareynayaan let's see inta ads ay meesha ku rangareynayaan okay waxa aragnaa waxa ku qoran around 190 results so qoladan around 190 maaragtay ads ayaa u rangareynayaan that's a lot of ads macnaheedu xitaa dadkan dad faa'iido sameynaya 180 ads ma aadan rangareyn lahayn haddii store-kaaga uusan lacag fiican sameynayn so marka waxa arkaysaa qoladan kaleeto inay maaragtay ka faa'iidayaan qaar sawir isticmaalayaan dadkii oo I think waxay iibinayaan alaab dumarka wajigooda ay marsan karaan timahana ay marsan karaan hadda kale waxay ka hadlayaan alaab timaha ah timaha mar qaar waxay isticmaalayaan sawir ama qaar video hasawiraan u badan yihiin hadda store-kooda galno kale laan mo hadda raadi kaliya store-ka maaragtay ku geenaya landing page ay ku geenaya sidoo kale maanta la joogo waa laga tagay wixii waa hore qofka marka maaragtay uu shop now mise laan mo qofka uu ku dhaho aad geenayso maaragtay aad geenayso product page-ka waxa la sameeyaa maanta waxa la hagaajiyo wax la dhaho advertorial pages waxa way meesha qofka aad geen lahayd meesha ku iibsan lahaa alaabta ay taali ku iibsan lahaa waxa geenaysaa page gooni ah page-kaas oo advertorial ay dhahaan
page kaas waxa waaye marka qofkii ayaa maaragtay waxa ay baraysaa qofkii waxa uu sheegaysaa muhiimadda ay leedahay sababtoo qof walba aadska ka hor imaanaya oo ku dhufanaya ma aha dadku waxay iskugu jiraan dad garanaya shaygan wuxuu taraay faa'iido taraay oo raba inay gataan iyo dad waxay iskugu jiraan garanaynin dhibaatada haystaan soo dadkaas kaleeto waxaad tusaysaa waxaan wuxuu yahay ay baraysaa soo marka advertorial page wuxuu ka saacidinaya qofkan markuu ku soo dhufto meesha aad gelin lahayd product page meesha lacag ku iibsan lahaa gelin lahayd waxa geenaysaa page kaleeto oo meel kale ku hagaajisay oo page kaas dadka wuxuu tusayaa mise dadka ayuu faa'iideynayaa si kadib ay u iibsadaan hadda page kaas soo galnay advertorial page waaye waxaa ku qoran 5 top reasons to add proteins for gray hair so already qofka markuu waxa akhriyo wuxuu leeyahay okay reasons to add proteins for gray hair dadka waxa duqoobin maartay dumar ama ragbo duqoobin timooda protein waxa ugu tarayso waxay ka saacideynaysaa fortified fragile hair reconstructs damaged strands enhance so qofku wuxuu arkay okay intuusan iibsan karo wuxuu ogyahay okay alaabtan waxa itaris maxaa waay horta hadda qofka si geesid maaragtay page-ku ku iibsanayo waxa laga yaabaa inuu dhaho wax ma baahnibo laakiin marka aad geesid maaragtay page gooni ah oo advertorial ah ama landing page qofku waxa baraysaa marka horta dhibaatada haysato maaragtay iyo wuxuu ku sameyn karo wuxuu ku xalin karo sidoo kale waxa baraysaa product kan faa'iidada ay leedahay waxyaabo noocaas oo kale u sheegaysaa soo qofkan maadaama waxa dhan uu akhristo uu arko okay daawadan waxay tiraysaa fights against damage by enhancing shine softness dara waxa markuu akhri wuxuu isleeyahay okay waxa u baahanaa niyo wax wanaagsan waaye kadib ayuu maaragtay ku soo dhufanaya uu iibsan karaa soo marka waxa loo baahan qofka marka inaad ka iibiso maaragtay sheeko ka iibiso ama qaar maaragtay blogs aad qoraysaa meeshan blog waaye inaad qofkii sheeko ka iibisa la rabaa ka hor intuusan alaabtii iibsan soo hadda arkayna kaleeto alaabtan alaab fiican waaye yani storekan wuu u shaqeynaya kulli maaragtay haddii u shaqeynaynin waxaanu aadisa ma aysan raangaran lahayn soo ad library-ga waa maaragtay siyaabo fudud oo ku fiirin kartid competitors-kaaga aad ku analyze gareyn kartid maaragtay inta ads ay raangareeyaan ma arki kartid lacagta sameynayaan laakiin waxaa arki kartaa how many ads ay raangareynayaan waxaa arki kartaa page code intuu leeyahay waxaa arki kartaa ads ay raangareynayaan iyo waxay kusoo qorayaan hadda ads-kana kaleeto text-ka isticmaalayaan maaragtay caption-ka isticmaalayaan hadda kale wuxuu ku qoran our enriching purple shampoo is not a hair dry so marka waxa arkaysa hair dry ma hay kuleyn baashan so marka waxa arkaysa waxa meesha ku qorayaan waxa arkaysa headline-ka isticmaalayaan waxa arkaysa primary text-ka isticmaalayaan waxa soo dhan waxa arkaysa markii qofku uu ku soo dhufto page ay geenayaan so hal inaad ka koobiyisid competitors-kaaga okay wuxuu sameeyay maxay tahay qofkan wax u shaqeynayo adina waxa soo kaleeto in aan mar walba ku dayata hal rabaa ha iska dhigin in aan maarta dharka ka soo dhacday oo wax aan suuqa lagu arkin aad keentid kasoo qaadana kor alaabtan iyo qof iibina aniga alaabta marbi mid waxaan keenaa qofna uusan iibinayn dhibka leedahay waxay tahay marka aska dhigtid in aan maarta wax cusub keentid suuqa waxay tahay wax ka iibsana ma laha waxaan dadku waxay u iibsanayaan waxay tahay suuq ayuu leeyahay demand ayuu leeyahay marka adigana waxa loo baahan yahay kaliya in wax la iibinayo aad ka dib iibiso laakiin uusan ahayn wax maarta saturated ah mar hadda qof ka dib iibinayso oo waxaan ads uu raangareynaa macnaheedu waxay tahay suuq ayaa jiro lacag ay leedahay ayaa markaas waxa loo baahan yahay inaad ku dab xirto wuxuu sameynayo aad sameystid talaabada saddexaad ee ugu dambayso aad ku heli karto winning product waxay tahay inaad isticmaasho qolo saddexaad oo markaas access ku siinayaan facebooki access ku siinayaan traffic qofkan uu helayo iyo wax walba u baahan tahay laakiin badana waxyaabo noocaas oo kale taa waxay yihiin maaragtay bish lacag ayaa la bixiyaa laakiin bilaashna waa ku bilaawi kartaa tusaale kale hadda waxaan ku dhex jirnaa winning hunter haddaad qortid winning hunter da ku qortid google-kaaga wuu ku soo baxaya page-ka ugu horeyso markaad ku dhufatid winning hunter waxaa analyze kaliya waxaa u baahan tahay inaad account samaystid marka winning hunter wuxuu kaa saacidinayaa in aad maaragtay aad fiirisid ads ka rangareysma waa facebook hadda aan fiirin ads library oo xoogaa la buuxiyey oo la xoojiyey waaye waxaa search garaysan kartaa waxa u baahan tahay kasoo qaad meesha ku qoran tahay countries-ka waxaa leeyahay USA waxaa u baahan shay laga dhex iibinayo USA website-ka waxaa u baahan tahay shay store oo laga sameeyo Shopify Trustpilot Funnelish hadda kale waxaan dhahnaa waxaan dooranay Shopify language-ka English hadahno adset waxa waaye inta adset uu qofkan raangareynayo the more adset qofka uu raangareynayo the more profitable uu yahay sababtoo waxaas adseta ma aadan raangareyn lahayn haddii aadan faa'iido ka helaynin so sidoo kale waxaa dooran karnaa niche uu yahay niche waxa waaye waxaan ma beauty miya maxay tahay ma wax oo gaari miya gadgets miya jewelry miya so sidoo kale hadda waxaan dhahnay jewelry dhahnaa wuxuu ku tusayaa kaliya wuxuu ku sameynayaa filter wuxuu ku tusayaa jewelry so winning hunter waa Facebook ad library oo xoogaa maaragtay la xoojiyey sababtoo ah qoloyin ayaa hagaajistay oo wax saas ay lacag ku qaataan oo monthly payment ayuu leeyahay laakiin hadda daan page ku hore fiirino kaleeto waxaa arkaynaa
هل شيء أجرت ماشان أقول حركة هذا وشيء هذا وحركة في بالكن وحقرن vasve ja وpage ka wuxuu raangareynayaa 428 ad sets 428 ad sets aad u badan tahay macnaheedu waxay tahay qofkan wax ayuu maaragtay ka faa'iidaa haduusan ka faa'iido lahayn waxaanu ad set ah ma uusan raangareyn lahayn saarkeena sheeg hadan video play gareeya diba ku soo celinaa wax yar sug runtii product kada aniga ma han raarka waxaan ku arkay Instagram ka qole iibinayso waa winning product waa shay cusub wuxuuna tagid gareynaa emotions waa bahal yar oo la maartay fidget waxa la dhahaa fridge magnet ah fridge ka lagu dhajinayaa sidoo kale to wuxuu leeyahay music player way cod ay u shidayo soo marka kuwa waxaad kor waxa jireen oo hees caadi u shiday laakiin hadda qaabkan wuxuu shidayaa maartay quraan ayad ay u shidayaa ama maaragtay suurad ay u shidaa soo dad ayaa maaragtay san lacag ku sameynayaan oo maaragtay store noocan ay raangareynayaan hadda qoladan hadii aad gudaha u gashid hada shop now oo kala dhaho waxa arkayaa product kooda sidoo u eegyahay waa kana lacag Kenyatta iga dhigan 4,000 ay iibinayaan meesha waxa u hagaajin bundle-ka insha Allah muuqaalka aan jirto aan kaga sameyn doono sida maaragtay loo hagaajiyo store-ka soo bundle-ka mar walba muhiim waay laakiin waxa muhiimka aan aragno waxay tahay store-kooda sida u raangareynayaan muslim leen theme-ka waxay tahay quraan soo dad waxa laga iibinayaa maaragtay diinta jecel oo rabo in gurigooda quraan uu ka shidmo laakiin sida caadiga quraanka laga shidaa telefoonka waxa samahan qaab bahal yar oo lagu dhajinayo fridge-ka oo ana maaragtay suuradii play gareynayso so I think product kan is a simple page actually oo fudud page kan I think product is a winner hoosna qofkan wuxuu gelinayaa waxa waxay tahay reviews ka qofka waxa ka caawinaysa inuu trust yeesho oo laabtan ka iibsado I think this store is doing very well page clean way soo hagaajisan yahay store-ka sidoo kale to logo-da clean way bundles oo hagaajin clean way qofku waxaan oo payment ay u isticmaali karaan I think these guys are making a lot of money bro they're printing haddaan fiirino gudahood u galno soo marka shop hunter ka mise winning hunter hata shop hunter mid lagu jira winning hunter uu jira marka winning hunter mid ka isticmaalina waa soo marka winning hunter wuxuu ka saacideynaa waxay tahay in at least asi dooratid niche ka arabtid aad dooratid website ka Shopify ma kartaa mise website kala rabtaa country-ga يعني gudaha ayuu si galaya sidoo kale waxa arki karnaa even metrics ka qofkan inta maaragtay ads ku rangarnaa waa kuna soo arkaysa bro quraanki ayaa maaragtay hadda maaragtay soo galeen oo wax maaragtay la rabo in Shopify lacag looga sameeyo soo dadka mar walba dadka waxa la rabo inaad maaragtay target gareys emotions kooda waxaa arkaysa waxyaabo kristaan iibinaya kristaan yihiin muslimiinta waxyaabo muslimiin iibinaya waxa iibinaysa wax caruurta wax u xalinaya wax soo mar walba waxa loo baahan yahay waxa iibinayso inuu ahaan wax la maala yacni inuu ahaado wax dhibaato xalinayo ama wax qofki emotions markuu wixii arka muuqaalku dhahnay waxa u baahanahay lacagtii uu shubo laakiin wax markuu arko qofku dhaho waxaan u baahan tahay waxaan u sii baahnaniyo uu ka laabana waxa isla mar waxa loo baahan yahay in markuu saa muuqaalku arko uu dhaho niyo sheegan oo u baahanaya markiiba degdeg oo u baahanaya waa gadanaya marka ahaantii waxa leeyahay saddexda talaabo ayaa maaragtay ugu fudud wayna si kala fudud yihiin oo midda ugu horeyso aan ku dhahay yarkaas YouTube-kiisa ka soo fiiriye ayaa ugu fudud waana free lacag ka baxayso saad aragtaan qolooyinka kaleeto waxay ku dhib badan tahay waxay tahay midda horta la isticmaalayo maaragtay third party waxay ku dhib badan tahay waxay tahay lacag bixay ku leeyihiin bishii si ay maaragtay u access gareysay datadeena markay noqoto Facebook-gana datadiisa aad ay u weyn tahay oo wax ma ku taray sababtoo data aad u weyn markay tahay waa ku dhex wareeraysa adigii waxa ka dooranaysid ma garanaysid taas ayaa ku dhahay midda ugu fudud oo ka qaadin karto waxay tahay midka yarka uu ka hadlayo uu soo geliyo maalin walba uu soo gelinayo muuqaalo YouTube uu ku tusaayo product isaga uu ku sameeyay research khaasatan product uu fiiriyo lacagta sameynayaan maaragtay store-kooda sidoo uu egyahay landing page-ka isticmaal waxyaabo noocaas kale taa maadaama isaga taa uu ka iibin rabo maaragtay waxyaabo kale to laakiin hadii muuqaalkaas kaliya aad daawatid mise muuqaalis aad daawatid oo xaysiiskii waxyaabo ka hadlaya faraha ka qaadid waxa ka faa'iideysa waxyaabo badan run ahaantii waana sababta maaragtay aan isleeyahay waa mid ugu fudud inaad ku heshid winning product-ka run ahaantii yarkaas doo aan lahayn anata ma heli lahayn winning product maanta waxaan isleeyahay yar waxa waaye channelkiisa aad ayuu yaryahay but faa'iidadu sameynaya iyo waxyaabo soo dhigayo wax aad u badan ayay tahay
marka muuqaalka hadda ka heshay like subscribe and share runtii maanta la joogo dropshipping uu sii fududaanayo waxaana mar walba sahlayo maaragtay AI-ga waxaa sahlaya dhalinyaro badan oo YouTube ka hadasho oo maaragtay waxyaabaan ka hadlaan kaliya ma inaad daawato dadka Soomaalida ka hadla muuqaalada noocan oo kaleeta oo dropshipping-ka balse waxa ku dhihi lahaa maaragtay waxyaabo kala fiiri dadka luqadooyin kala ku hadla fiiri English oo kale ta fiiri sababtoo ah waxyaabo badan ay naga horeeyaan macluumaad badan ay garanayaan aniga aan garanin ani kaliya waxa ku sheegay waxay tahay just 20% ayaan ka soo maqlo waa sababtoo ah iga hadii aan leeyahay hata maaragtay waxaan ma ogaaleyn sababtoo iga markii waxaan sameeyeen baaniga la soo gaaray soo mar waxaan lahaa hasku xakimin inaad daawato kaliya muuqaalada dropshipping ka hadlaya Soomaalida kaliya waxaad daawataa sidoo kale muuqaalo badan oo dadka kale ka hadlayaan daas aan ku dhahay wiilkaas wuxuu ugu jiraa number 1 dadka aad daawan kartid si aad u heshid maaragtay winning product runtii taas research-kaas ayuu ku fiican yahay markay noqoto step 2 oo store si loo hagaajiyo waxyaabana caskalata dhalinyaro kale oo maaragtay kaga fiican ayaa ni sheegi doona laakiin markay tahay research-ka yarkaas ayaan ahaan number 1 ugu jiro haddii yarkaas aad muuqaalis daawatina ma u maleynaa inaad ka weynaysid winning product haddii muuqaalka faa'iiday insha Allah waxaan filayaa inaad ka heli doonto waana muuqaalkan xiga insha Allah take care